الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مركز الإسلامي لأهل السنة والجماعة في يوتيوبوري waxaa idinku soo dhaweynayaa mu'tamarkii 7-labaatanaad ee Scandinavian-ka. mu'tamarka cinwaankiisa guud waxa uu yahay idcu ila sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana. waxaan ku jirnaa mu'tamarka maalintiisii saddexaad. haddana waxaan geli doonaa biidn illahi tacaala muxaadaradii afraad baynu gelaynaa biidn illahi tacaala. محاضرة waxay noo geli doonaa shaykhuna alfaadil sheekh mustafa xaaji ismaaciil. waxaana muxaadarada cinwaankeedu uu yahay qaabka ama habka dacwada loo guto, wasaa'ilu dacwa, ayuu sheekhu insha allahu tacaala ka hadli doonaa. falyatafadal fadiilatuhu mashkuuran ma'juuran biidn illahi tacaala. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، إن آيات القرآن هلك كقرا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. درسيني هو روحك صابسنا ادعو إلى سبيل ربك. درسيني ما أنت روحك صابسيه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي أحسن. سكالاتنا ندعنا وحين مركي ورك ورناي بمن ندعو ولماذا ندعو. waxaynu dadka ugu yeedhaynaa mabaadi'dii baynu ka warramaynay diimeed ee dadka loogu yeedhayay. waxaynu ka warramaynay sababaha aynu dacwadda u galaynaa maxay tahay, le asbaabtaynu sheegnay. maantana insha allahu tacaala wixii aynu wadno waxaynu ka warrami doonaa kayfa nadcu, habkee ama wadadee baynu u maraynaa si aynu dadka u gaadhsiino diinta. marka waa alkayfiya iyo jaranjarada ah min ayna nabda wa ilaa ayna nantahi. xaggaynu wax ka bilaabaynaa, xaggaynu se ku dhammaynaynaa baynu wax ka tilmaami doonaa. ayuha alaxiba, dunida aynu maanta joogno waxaynu sheegnay globalization inuu ka jiro, oo macnihiisu yahay baynu nidhi in la fasaxay dhaqdhaqaaqa maalka iyo dadka iyo afkaartu inay isu gudubto. marka cid waliba budaacadiisii ama budaaca fikriya ha noqoto, bidaacada u wataa, ama mid caqliyeed ha noqoto, ama ha noqoto mid maadiya uu suuq keenay. soomaalidu waxay tidhaha ninba ceesaantii ceelkeen. waxaa laynaga rabaa inana waxa weeyaan inaynan xishoona inaynu mabda'ayna suuq geyno. maanta dunidaynu ku noollay adawaadka qura lama suuq geeyo. yacni iclaanaadka waxa loo sameeyaayoo quri ma aha raashinka iyo waxa la cunayo wax la iibsanayo. tusaale ahaan, otoboska cas ee magaalada London mara, malaaxidada ayaa iclaanaad ku dhejisay ee ay leeyihiin waxaa la filayaa inaan ilaah jirin, ha warwarin ee nolosha enjoy garee. waa iclaan ilxaad ku dhawaaqaya. xataa almalaaxida ilaah ma jira baa iclaan loo sameeyey oo inta lacag laga bixiyo otoboska ku dhejisan. perhaps there is no God. waxay u badan tahay haalib waxa inaan ilaah jirin. laa taqlaq, ha murugoonin, ee waa maxay, enjoy your life. marka dunidu maadaama ay halkaa marayso oo cid waliba afkaarteeda faafinayso, waxaynu u baahannahay inaynu baranno sidii aynu u suuq geyn lahayn ee caalamka u gaadhsiin lahayn xilkanina saaran ee siday dadku u badbaadayeen. مبدأ كستاما وحوليبا وحولي مقاصد يا وسائل. مقاصد وحلا يرادا ومعدة وغاية وهدفك ووحلا الربو. وإسلام لماذا إنك مقاصدية؟ وحنا وحلا يرادا وسائل
ama asaaliib waa wasiiladu ma yutawasalu biha ila almaqsad waa wixii lagu gaadhayay waxaan la rabay in dadka loo gaadhsiiyo marka dadka inaynu diinta gaadhsiino oo diinta ilaahay in dadka la gaadhsiiyo waa qasdigii haddaba kayfiyadii aynu u gaadhsiin lahayn iyo sidaynu dadka diinta u bari lahayn iyo siday diinta loo qaadan lahaa iyo waddooyin iyo qaababkaynu mari lahaynee sharcigu ogol yahay ayaa wasaa-ishaynu ka warramayno ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay aayaddaa dusheenna ku qoran udcu ilaa sabiili rabbik bilxikma waalmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ilaahay jidkiisa dadka ugu yeedh marka hore urur iyo xisbi iyo dad gaara uguma yeedhayno ila sabiili rabbik ila allahi waxdah xagga rabaynu dadka ugu yeedhaynaa inay ku xidhmaan waxaa adeegsataan baa layna yidhi marka albaa lilistisxaab aw lilmaciya aw kada aw lilisticaana say culamaai naxwi odhan jireen adoo adeegsanayo kaalmaysanayo oo isticmaalaya xikmad waano wanaagsan iyo dood fiican baa ilaahay yidhi marka wasaa-isha dacwadu ama qaabka dacwada loo gutaa umuur xisiya maadiya way leedahay umuur macnawiyana way leedahay qaabka dacwada loo gutaa waa tiro badan yihin kitaab la qoruu noqon karaa maqaal jariidad lagu qoruu noqon karaa lecture la jeediyuu noqon karaa khudbad la akhriyaabuu noqon karaa waana yaroo cid loo sheeguu noqon karaa nasiixo qof la seeyaabay noqon kartaa irshaad iyo tusmiya tusaalu noqon karaa tacliin iyo waxbarashuu noqon karaa waxaasoo dhamme waa wasaa'il ka mid ah bini aadamku wasaa-isha uu afkaarta isugu gudbiyo wasaa-isha diinta loo gudbiyaana qaarna waa mansuusa markaanu leenahay waxa weeyaan qur-aanka iyo sunnadaaba sheegay qaarna waxay culammadu yidhaahdaan tudraku binnadri asaxiix aw altajriba aragtida quman iyo waayo aragnimada fiican baa lagu heli karaa waa qof bini aadama waxa aad rumaysantay sidaad caqligiisa ugu gudbin lahayd sidaad ugu qancin lahayd sidaad uga dhaadhicin lahayd wasaa'il wax ka midaynu markaa wax ka sheegi doonaa waayo wakhtigu wuu kooban yihi laakiin mid baan marka hore kasii digayaa oo ah dad badan waxaa iskaga qaldama al-usluubu waalmadmuun waxa la gudbinayaa waxa uu yahay iyo qaabka loo gudbinaya dadka badh iskaga khaldama markaasuu isagoo isla diintii gudbi ayuu madmuunkii diintii ku xadgudbayaaba tusaale haddaan ku siiyo dabkhada wax karinta raashinka la karinayo iyo qaabka loo kariya waa kala laba raashinka waxaa laga yaabaa in lagu keeno hilib iyo bariis iyo khudaar iyo kan iyo waa maadadii waa madmuunkii la rabay dadka inaad siiso waa wixii dadka la rabay inaad ku soorto laakiin xirfadaadu qayb bay ka qaadanaysaa soortanaad dadka siinayso haddaad kuug fiican tahayna si wanaagsan intaad u bislayso ayaad iyadoo wax macaana maxay dadka siinaysaa waa wixii lagu dhiibay haddaad se farsamo xuntay iyadoo barax iyo milixabaad u dhiibi dabeetana wuxuu isagoo wixiiya ayaan haddana dadku maxay ayaanu dadku liqi karaynin marka innagu waxaynu rabnay inaynu maanta wax ka tilmaamna waxa weeyaan waa kayfiyatu tabkh sidee bahasha loo kariyaa ama waxa la karinaya waxa la dhiibayaa waa alkitaab wa sunna ilaahay baa soo waxyooday wax badanoo ka mid oo asaaliibtana ilaahay baa inoo sheegay haddaba waxaynu u baahanay inaana iskaga ka qaldamin usluubka bini aadamka loo qanciyo ama xusni alcardiga sida fiicane wax loo soo bandhigo ama usluubu targhiib sida qofka loo jeclaysiiyo mabaadi'da iyo mabda'a laftiisu ilaahay subxaana wa tacaala nabiyullaahi muuse fircoon buu u diray fircoon waa ninkii sheegtay inuu yahay maxay rabbi iyo ilaahba sheegtay ana rabbukum ulaclaa iyo maa calimtu lakum min ilaahin hayri iyo rabbi iyo ilaahnimo dadka u sheegtay dictatornimo siyaasadeed halkaasay ka gaadhay ilaahay nebi muuse markuu u diray calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi ninkaa la hadal oo diinta u sheeg
sidee ugu sheeg baa la yidhi usluub alcarad hal laka ilaa an tatazakkaa waahdiyaka ilaa rabbika fatakhshaa hal lak usluub alcarad war ma rabtaa makuu soo bandhayo ma inaad daahirsanto ma rabtaa oon rabbigaa kugu hanuuniyo waxaa lagu yidhi isagiiyo nebi haaruun idhabaa ilaa fircawna inahu tagaa ilaahay wuxuu sheegay inuu qooqay ninkan inuu kibray u taga fircoon waa nin kibraya baa ilaahay yidhi laakiin ninkaa kibray maxaa ku odhanaysaan faquulaa lahu qawlan layina lacalahu yatadakaru aw yakhshaa war dabacsan u sheega baa la yidhi waxaa la arkaa inuu waantoobo ama alla ka cabsadee waa usluubkii ula hadlayay laakiin xaqaa'iqda ma waxba laga bedelayaa maya waxa la sheegayo si fiican baa loo sheegayaa quman oo degan oo laakiin waxa la sheegayaa madmuunka lama bedelayo saa awgeed baa fircoon wuxuu yidhi markii loo tegay waman rabbulcaalamiin rabbulcaalamiinkaad sheegaysaa waa kee wuxuu ugu jawaabay nabi muuse qaala rabu الsamaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin rabbulcaalamiinkaanu kaaga warramayna waxa weeyaan rabu الsamaawaati waalard wamaa baynahumaa ma aha fircoon iyo kan waa rabbiga cirka iyo dhulka iyo waxa u dhexeeyaba iska leh doodoodu markay adkaatay fii suurati taah ilaahay muxuu ku tilmaamaya inaa qad uuxiya ilayna ana alcadaaba calaa man kadaba watawallaa waxaa naloo waxyooday cadaabka inuu iska leeya ciddii ilaahay beenisay ka jeesata qaala faman rabbukumaa yaa muusa markaasuu yidhi war yaa idin rabbiya qaala rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu huma hadaa annaga rabbigayo waa rabbiga wax kasta oo nool abuurkaa u abuuray siiyey kuna hanuuniyey sidii uu noolaan lahaa idan dacwadaan dhiibayaa laakiin diintaan ka inxiraafayaa sax maaha ilaahay nabigiisii moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi falaa tuطici almukadibiin wadduu low tudhinu fayudhinuun ha aqbalin kuwan ilaahay beeniyey warkooda waxay jecel yihiin inaad in yar xaggooda usoo guurto usoo janjeersatid iyana ay kuusoo janjeersamaan insaaf alxuluul ma jiro diintani waa diin samada ka timi adigu ra'yi kuma lihid adiga waxaa lagaa rabaa waa maxay usluubka aad u bandhigayso maye dad iska fiican baa tina waxaa maaha qul yaa ayuha alkaafiruuna baa ilaahay yidhi waxaad ku tidhaha war gaaloy tiin waa gaalnimo laa acbudu maa tacbuduun idan mawduuca kani waa mawduuc zallat alaqdaama oo runtiina ahlulcilmi walmujtahidiinta raasikhiinta ah ayaa saxi kara usluubada iyo madmuunku inaanay isku xadgudbin ilaahay nebi maxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam madmuunka lagu faray diinta lagu faray haddaad wax ka tagto wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftariya calayna gayrah waida latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayئa qaliila ida laadaqnaaka ضicfa alxayaati waضicfa almamaat huma laa tajidu laka calayna nasiira waxay ku dhowaadeen baa ilaahay yidhi inay kaa weeciyaan waddada oo aada nagu been abuurato waxaanan kuu waxyoonin hadday nebi maxamed khatar la geliya adigu maxaad isu malayn waa inaad markaa hubisaa waxa aad sheegaysaa waxay haddaad dhankooda u janjeersata baa ilahay yidhi saaxiib bay kaa dhiganayaan waa ku soo dhawaysanaya illa waa ku soo riixdeene hadday xaqa ku weydaariyaan waa ku soo dhawaynaya haddii lala yahay baa ilaahay yidhi sugidaan anigu ku sugay walowlaa an habatnaaka haddaanan anagu ku sugin baa ilaahay yidhi laqad kidta tarkanu ilayhim shay-an qaliila waxaad ku dhowaatay inaad waxoogaa u weecato hadday dhici lahayd inaad weecatana idan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat idan ayuha alaxiba madmuunku yuu qaldamin diintu waa diin cad maaha caqligaaga waxa ku jira ee waa wixii ilaahay kitaabkiisaa ku qoran taasi waa diin usluubkuse sida dadka loola hadlayo
sida loo qancinayo sida loo turuqu taswiiq alafkaar bay maanta sheegaan sidaad aragtidaada u suuq geyn lahayd iyadu waa usluubku waxbuu u baahan yahay ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay udcu ilaa sabiili rabbik ilaahay jidkiisa dadka ugu yeedh adoo adeegsanaya maxay bilxikma xikmaddu bay yidhaahdaan qur-aanka markay ku soo aroortay kitaabka ku xidhiidhsantay waa sunnada meelo kalena siyaabo kale ay culammadu u fasiraan oo waxay yidhaahdaan waa shay walbo halkuu ku quman yahay la dhigo xikmaddu marka waa caqli iyo iqnaac iyo shaygu halkuu ku qumanaa la dhigo iyo walmawcidati alxasana qofka oo la waaniyo waana wanaagsan qofka bini aadamka ahi waxaad ogsoonaataa caqli qura maaha soo saama ogi qofka bini aadamka qalbina wuu leeyahy idan dadka barh baa waxu haysta bini aadamka in loola hadlo un qaab academic ah qaab logic ah qaab caqliyo qura waa loola hadlaa sax weeyaan laakiin waxaa kaloo bini aadamka loola hadlaa qaab cawaatiftiisa iyo wujdaankiisa lagula hadlayo qaab la cabsi gelinayo qaab wax loo jilcinayo qaab wax la jeclaysiinayo waa cawaatif alqalb alxub walkurh waltarghiib waltarhiib iyo wixii la mida insaanku labadaba waa leeyihi dhagax maaha qofka bini aadamka ah waxaa kaloo qur-aanka ilaahay ku tilmaamaya wajaadilhum bilatii hiya axsan dood iyo munaaqashaadkana si fiican ula dood fiican oo inta badan dooddu markay timaado bini aadamku guulaysuunbuu ka fekeraa maya doodda waxaa laga fekeraa xaqa in la gaadho inuu xaqu caddaado inaad qofka jabiso iyo inaad adigu guulaysataa muhim maaha waxa muhimkaahi waa maxay xaqiiqadu dhexdiinna inay caddaato qofkii raacaya ha raaco qofkii aan doonayna dadka badh baa mucaanida badh baan rabin inuu xaqa raaco laakiin waa inay gaadhaa xaqiiqadu inay makshuuf noqoto caddaato shubahaadka madmadowgana la faydo kaasaa jidaal xasana ah waayo ilaahay wuxuu leeyahy ina rabbaka huwa aclamu biman dalla can sabiilihi wa huwa aclamu bilmuhtadiin ilaahay isagaa og dadka kuwa jidka ka lumaya iyo kuwa hanuunaya rabbi isagaa yaqaana hanuunku biyadillaahi buu ku xidhan yahy nabi maxamed waxaa lagu yidhi wainaka la tahdii ilaa siraatin mustaqiim iyo inaka laa tahdii man axbabta jid toosan baad dadka ku hanuuninaysaa waad u caddaynaysaa weeyaan laakiin qofkaad jeceshahay qalbigiisa hanuunka ma gelin kartid baa ilaahay ku yidhi hanuunku ilaahay gacantiisu ku jiraa laakiin adiga waxaa lagaa rabaa shubahaadka iyo madmadowga iyo shakiga iyo khuraafaadkan qofka caqligiisa ka buuxa inaad dawayso tabiib inaad noqotid haddaba asaaliibtu kow waxa ka ah inaad luqada isku fahamtaan ilahay qur-aanka wuxuu leeyahy wamaa arsalnaa min rasuulin ila bilisaani qawmihi liyubayina lahum fayudilu allahu man yashaa wayahdi man yashaa wahuwa alcasiizu alxakiim maxaynu u tilmaamaynaa ilahay wuxuu leeyahy rasuul maan soo dirin ilaa waxaan ku soo diray bilisaani qawmihi afka dadkiisa maxaa loogu soo diray rasuulka ajanabiya looma keenin ee rasuul afkooda ku hadlaya ilaahay wuxuu leeyahy liyubayina lahum si ugu caddeeyo luqadu dadku wax fudud bay u haystaan ma aha luqadu waxay yidhaahdaan waa wicaau thaqaafa waa weelka dadku siduu u fakeroo dhami uu ku jiro hadday culture tahay hadday dhaqan tahay hadday caadaad tahay hadday luqadaasi de waxaasoo dhan ciddaad luqadeeda si fiican u baratid ma aha dee ka warramaayo luqada innagu inta badan waxaynu ka baranaa inta suuqa wax lagaga iibsado luqada suuqa waxa lagu iibsadaa luqatu dacwa maaha waxoogaagan dee dukaanka lagu tago ee gaadhiga lagu fuule ee habarta soshiyaalka lagula hadle inaha dacwo kuma jeedin karaysid taasi waa iska uun afdhagooleyntay waxoogaa dhaantaa wadadunbaad dee ku dhaafaysaa laakiin luqada rasmigaa markaad fahamtay ummaddu leeday caqliyadoodaad fahmaysaa weeyaan siday u fakerayaan dadkani baad garanaysaa maalan halkan baa maanta joogta qofka swedishkii uma fakero sida qofka soomaaliga u fakero isku aragti maaha nolosha susi uma arkaan
isku wax lama weyna isku si bini aadamka uma adraskareeyaan weedha uu kaa sugayo waxaa laga yaabaa soomaaliya erayo markaad isticmaasho ixtiraam ba aha halkan inuu aanu ixtiraamba u ekayn qaab qofka aad u ixtiraamaysay soomaaliya markaad joogto yani soomaaliya markaad joogtay maalan qofkaad siiba waqooyiga markaad degantay ee yaa hebel waa ixtiraam waa qof aad weynaynayso koonfurka ma aha laakiin ee yaa koonfurka ma aha eray qurux leh waa soomaali gudaheed ayaa meel uu eeyaa hooya aad leedahay eeyaa aabbo adoo u danlaynaad aabbaha ixtiraamto oo weynayso meel aanu ka ahayn eray ixtiraama oo eeya hebel haddaad qof ku tidhaahda laga yaaba ina cadhoodo idan luqadu waa sidaa luqadu waxay sidaa ummad kasta thaqaafadeedii iyo musطalaxaadkeedii iyo qaabkay u fakeraysay iyo waxay weynaynaysay walidalik ilahay wuxuu leeyahy rususha waxaan ku soo diraa bilisaani qawmihi liyubayina lahum afka dadkaasi si uu ugu caddeeyo diintii alla u soo dhiibay fayudilu allahu man yashaa wayahdi man yashaa wahuwa alcasiizu alxakiim ilahay isagaa cidduu doonana markaa hanuuniya cidduu doonana aan hanuuninin lumiya wahuwa alcasiizu alxakiim maadaama ay caynkaa tahay waxaan tilmaamayaa bal kuwa mansuuskaa wax ka mid ah yani waxay yidhahdaan siyaasatu rasuuli fi dacwa wax ka mid ah aan tilmaamo nabigu calayhi salaatu wasalaam asaaliib kala gedisan buu isticmaalay markuu diinta dadka ku faafinayay waxaa ka mida maalan markii ay soo degtay wandir cashiirataka alaqrabiin tolkaa u dig ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu fuulay buurtan safa la yidhaahdo hadda dee masaajidka safiya marwe hadda waa la baabi'iyo dee arki maysid waa uun meel bannaan oo aynu orodnaha awal laba buurood oo masaajid ka baxsan bay ahaayeen oo buur caadi ah marka nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu buurta fuulay ayuu dhawaaqay yaa bani fihr yaa bani cabdilmuطalib waa sabaaxa nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu buur fuulay buu qayliyey dhawaaqaya isagoo leh war reer hebelow reer hebelow reer hebelow quraysh qabaa'ilkeedii tirinaya waa loo soo ururay dhaqankooda wuxuu ahaa hadduu qofku meel istaago u dhawaaqo macnaheedu waxa weeyaan war khataruu qofku sidaaye in la dhegaysto waa loo soo ururo waa la dhegaystay su-aal buu weydiiyey ara'aytakum low akhbartukum ana khaylan bilwaadi turiid an tugiira calaykum akuntum musadiqiya buu nabigu yidhi haddaan idiin sheego buurtan gadaasheeda buurta isagaa taaganoo iyaguma arkaan waxa ka dambeeya haddaan idiin sheego buu leeyay buurtan gadaasheeda ciidan fardoolaya inuu soo ordayo raba inay idin weeraraan ma iga rumaysanaysaan war waa laydin gelayaa balaayaan arkaa haddaan idin idhaahdo ma rumaysanaysaan qaaluu nacam maa jarabnaa calayka ilaa sidqaa bay idhahdeen waa ku rumaysanaynaa waayo hore kuugumaanan aragaad oo been sheegaya qaala fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid buu nabigu yidhi haddaba waxaan dada uu idinka digayaa cadaab kulul oo ilaahay xaggiisa ah haddaa ilaahay caasidaan ayaan idinka degayaa waa maxay masaladani waa iclaanu linnaas bidacwa sawaa ama t v ka hadal ama raadiyow ka hadal ama meel dad isugu yimi ka hadal ama si calana inaad wax u sheegtid oo dadka ugu yeedhid sida calanka markaad u sheegto ma waxaad rajaynaysaa in lagu raaco waa laga yaabaa in goobta lagugu beeniyo in lagu soo radiyo maqaalkaad qortay maqaal cagsigiisa in lasoo qoro lecturekaad jeedsay cagsigiisa in midu jeediyo waayo nebi maxamed oo taagan ayuu abilahab markaa lahaa tabban laka saa'ir ilyowm ala hada jamactana waar hooge ma waxaasaad noogu yeedhay buu ku lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahay soo dejiyey tabbat yadaa abi lahabin wa tab abilahab baa hoogay gacmihiisu ha hoogaana baa ilaahay leeyihi abilahab baa hoogay baa la yidhi xadiis saxiixaynka ku yaalla nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isticmaalay usluub alcard lilqabaa'il fi laswaaq meelahay carab isugu timaado inuu reeraha u tago o yidhaahdo war nimayo wax ma iga dhicinaysaan uma idin raacaa aan diinta ilaahay faafiyo oo sheege carada nafsahu liaqwaamin kaafiriin ayuu isu bandhigayaa
jaabir ibnu cabdillaahi baa wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam 10 sannadood buu qabiilka carbeed kolba carabtu fii jaahiliyatihim way xaji jireen markay yimaadaanba intuu u tago qabaa'ilka carbeed oo soo maro ayuu odhan jiray may aqbalaysaan kutubu siira qaar ka mida waxay sheegaan ilaa 17 qabiil inuu nebigu isu bandhigay uu leeyahy war mayda raacade ma waxba iga celinaysaan aan ilaahay diintiisa sheegay suuqa majinna iyo cukaad iyo manaasilulqowm bimuna iyo dhulka intuu ugu tago man yu'wiyani wayansuranii xataa uballiga risaalaati rabbii walahu ljanna buu nebigu lahaa war yaa ii hoynaya oo ii gargaaraya si aan ilaahay diintiisa dadka u gaadhsiiyo oo janno ilaahay siiya falaa yajidu sala allahu calayhi waaalih wasalam axadan yansuru walaa yu'wii muu helin nebigu cid u gargaarta iyo cid u hiilsatoona mar damba buu helay maxay ansaar oo ansaari qaadatay oo shardigii fulisay xadiidka sheekh alalbani fiqu sira iyo silsila saxiixaba uu ku tasxiixinaya idan waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam usluuba calan inuu dhawaaqo dadka ugu yeedho wuu tijaabiyo usluuba inuu qabaa'ilka isu bandhigo wuu tijaabiyey waxaan leenahay asaalibta waxaa ka mid ah bitadriiji dadka in diinta loogu sheego diintoo dhan mar qura qofka haddaad kala wada hadasho waad lugoynaysaa bitadriij oo nabigu calayhi salaatu wasalaam maalan mucaad ibnu jabal markuu dirayey ee yeman u dirayey wuxuu u tilmaamay qaabkuu nimankaa ula hadli doono niman reer ahlu kitaab aad u tegi doontaa buu nabigu ku yidhi innaka ta'ti qawman min ahli lkitaab waxay culammadu yidhaahdaan waa sharax loo sheegayo mucaad ibnu jabal ardiyada dhulka ka horeysaa nooca ay tahy dadka waa inaad thaqaafadooda taqaana aad rabto inaad wax ka dhaadhiciso mucaad ibnu jabal nin reer madiina buu ahaa thaqaafatu ahlu kitaab buu wax ka yaqaanay dee yuhuud baa deganayd meesha dabeetana nin reer madiino ahlu kitaab iyo afkaartooda wax ka garanaya baa loo diray yeman waxaana loo sheegay dadku u tegaya inay ahlu kitaab yihiin meesha uu isagu tegayo ahlu kitaab inay yihiin haddaba fadcuhum ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah qodobkaa kala waran caqiida dadkan uga waran waxaa laga yaabaa dadku inay rabaan inay dacwo faafiyaan dabeetana waxaad dooda ka bilaabaysaa islaamku 4 buu yidhi guursada iyo waxa kan iyo kuwa dooda kama bilaabanto waayo masale fudud haddaad qofka ka dhaadhiciso question baan barina mid kale u keenaysa haddambana shubha kale u keeni kooxdan mid kale u keeni dee saasuma kugu wadayaa maalinba baab buu furayaa cusub kan markaad ka saartaba godkan markaad ka saartaba maalin god kaloo cusub buu furayaa laakiin diintu waxna waa furuuc waxna waa usuul furuucda waxaaba laga yaabaa fiqi badan oo iskhilaafsan oo ra'yigiisaba ra'yi ku dhodhow in loo helo laakiin waxaa asalka ahay waa maxay waa usuusha haddii qofka laysla afgarto furuucdu waa hayin layin waa wax fudud qofka waxa muhima arkaanul iimaana lagala hadlo ilaahay kelinimadiisa iyo maalin aakhira la yidhaahda oo dambayso dadka la xisaabaya inay jirto labadaasaa ugu weyn caqiidada كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله يوم القيامة وحق الأردم إلا بدأ تنبي دب صعدان أما شرحيا إذا قف كانت أصوشة كلا هذا شابة مهمة negotiation كينو إنه قبل ما أصوشة يعني نقارن محي فروع ده والله جاي ما فرعين مركز جوابته أما قف شبهات دتكو آخرين ينتك جوابته لكن مركز دعوة ربطين بحسه وين أصوشة كضوضة qofkii ku qanca maalan kitaabku inuu xaq yahay qur-aanku maxamedna ilaahay rasuulkiisii miyuu ku weydiinayaa afar iyo salaada imsa maxaa shal loo tukadaayo dee ilaahay baa yidhi umad ku leedahay suuratu nisaa bay saasi ku taallaa taad socolo waa ila qofka waa mu'min ilaahay wuu rumeeyey qofka mu'minka waa laga yaabaa inaad xikma raadisaan mas'ala xikmada ka dambaysa maxay tahay dabeetana maxaasin alislaam inaynu sharaxno لكن أصل كوحوي أنا نسلق رنو من الآمر والناهي يا وحنا الشرعيين كره يا نقدم بيننا رب السماوات والأرض سادر ردد بو النبي جو حكو يري وحكو واداد ويا مسألة ده نقطة قرآن كمر كذا يكتو أنبياء دي الله صادري أنبياء بدل ما قرآن كورمية وحناوي ما دندد باتو ينتربض هستان نبي ولي بو حكبل أبي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
bacdaha buu keenay maxay masaa'ilkii dadka kane ay dhibta ku qabeen waxay doontaba ha ekaatay marka waxaa lagu yidhi halkaa ka bilow fa inhum ataacuu lidalik buu nebigu yidhaha hadday taa ka aqbalaan faaclimuu ana allaha qad farada calayhim 5 salawaatin fi lyawmi waleyla u sheeg in ilaahay faray 5 salaadood habeen iyo maalintiiba hadday taa ka aqbalaan u sheeg in la faray sadaqo yani zakadii laga qaado dadkooda wax haysta oo dadkooda aan waxba haysanin la siiyo takaaful ijtimaaci inuu jirayo hadday kaa aqbalaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xoolahooda kuwa quruxda badan leh ha ka gurin dulmigana iska ilaaliyo habaarka ninka daalimka ninka la dulmiyey habaarkiisa iska jir waayo isaga habaarkiisa iyo alle dhexdooda waxba uma dhexeeyaan xadiis saxiixayn ku yaalla bale waxaad garan doontaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dadku diinta ugu yeedhayay siduu ula dhaqmay reer thaqiif baa u yimi nebiga markay islaamayeen markaasay shardi dhigteen waxay idhahdeen annagu sakadana bixin mayno jihaadina mayno shardiga maku islaamnaa sakada iyo jihaadkaanu ka hadhaynaa ee ma islaamnaa nebigu wuxuu yidhi haya islaam markay ka tageen buu wuxuu yidhi hadday islaamnimadoodu dee dab noqoto sayatasaddaquuna wayujaahiduuna idaa aslamuu buu nebigu yidhi hadday islaamnimada qaataan sadaqadan iyo jihaadkan iyo waxaan way fulin doonaan inay islaamnimada qaataan oo diintan galaan baa muhima xadiidka abu daawuud baa warinaya sheekh albaanina saxiix buu ku tilmaamaya bale fi thamr almustataab imaamu axmed wuxuu soo aroorinaya عن طريق الشعبة عن قتادة سند شيخ الألباني لا يوا صحيح على شرط مسلم وكنت الماميو وحسار ورنيا قارن النبي قوي مادين وكوي رهدين أنا قوان إسلامية لكن أنا مشان قرتو كان ما يلمو ما تكنيا لا بس صلاة ضد ما تكنيا نبي قوكا أقبل يقولي ولاة الأمور مسائل كائنة يقبل كران الشيخ الألباني وحو قدك عنوان ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولو لم يرضى بإقامة كل الصلوات الخمس نحن لنا دعوة مركا الله وضع على سبيل التدرج لكن مسألة ذني ومسألة أباهن اجتهادية أقوم بضا صدرات علماء وحكوت الماما الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه في فتاويه وحو aada ugaga hadlaya mas'ale tan ku dhodhow oo ah qofka maxaa la wada fari karaa muslimka hadda soo galay ama caynkana dabeetana waxa uu tilmaamayaa qofka inaan mar qura diintoo dhami waajib ku wada noqonaynin laba mas'alo markaa aada u tilmaamaya uu leeyahay qofku labadaas haddaan wada helin alwujuub waltaxriim mashruutaan buu ku tilmaamaya biimkaani alcilmi waalcamal waajibaadka iyo xaaraantu waxay ku xidhan yihiin laba shay imkaan alcilm iyo imkaan alcamal haddii labadaa mid maqan yahay imkaanulcilmigu hadduu maqan yahay qofku waxaanu aqoon u lahaynba waajib saaran maaha imkaanulcamalna istitaacadu hadday maqan tahayna iyana qofku waajibku ma aha waa masala zallatul aqdaam badan ay ka jirto ijtihaadna u baahan waa masaa'ilka u baahan in ahlu cilmiga looga dambeeyo maxaa la horraysiinaya maxaase ninka dhallinyarada ee degdegaya isagoo waxa laga yaabaa inuu markiiba keeno diintoo dhan dadku maxay u qaadan waayeen ama maxaa suurtagal maaha diintani 3 sannadood bay soo degaysay mujtamacan waxba haysanin mar qura inuu halka u dambaysay gaadha suurtagal maaha haddana dee arkaantii waaweyneed ee islaamka iyo waxaas inay muran badan galaan maaha idan waxay u baahan tahay ciddii ijtihaadi lahayd waa ahlulcilmiga يعني علمه برشديسه هي تنزيل النصوص على الواقع ولا بقى كلفك إن هذا حفظ ذا كتاب لأنه مسايش قرن كركة كهيسة وحفظت لكن تنزيل النصوص على الواقع واجتهاد كلا شيء يواقع نصوصته إن واقع كتب بغضاه ما أنت محقق من هل كان نتقرطها ومسألة اجتهاد كلا شيء يبقى وأنا مسائل رنتي وحبدا نباهن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أساليبته استعماله وحكم ده مثلا كعبضة النبي محمد المامية كعبضه qaybo ka mid ah ayaan dhisnayn
intan xijru ismaaciil la yidhaahdee goobada yari ku wareegsantay xaggaa ka jirta waxay ka mid tahay gacbada gudaheedii waxay ahayd inay gudaha gasho oo seesku intuu halkaas soo gaadho inuu halkan maro oo haddaad tawaafto meeshan yare jeexan intaad xaggan ka gasho halkaa ka baxdo tawaafkaaga waxba kama jiraan waa inaad balkan kor ka martaa qorayshii markii ay dhisayeen waxay yidhahdeen xoole aan ribe iyo xaraani ku jirin baynu ku dhisaynaa dabeetana intan bay xoolo xalaala heleen xoolihii baa wada gaadhi waayey nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaanan ka cabsi qabin tolkayo islaamnimadoodu cusubta inay buuq iyo qaylo bilaabaan intaan kacbada dumiyo waa qol kacbadu waa guri yar intaan dumiyo ayaan dib u dhisi lahaa oo qawaacidu ibraahim baan dib ugu dhigisi lahaa oo laba albaab baan u samayn lahaa mid xaggan oo laga galiyo mid xaggaasoo laga baxa oo laakiin nebi maxamed ma dumin haddana sidii buu kaga dhintay isagoo dhowrayay khaatirka dadkan hadda soo islaamaya wixii la mid a waxay leeyihin markaa usluubu dacwa waxaa ka mid ah waxaynu dhihi in kor loo sheego la dhawaaqo waxaa ka mida baynu soo tilmaamnay in dadka waxaad ugu yeedhaysaa uu waxay fulin karaan uu noqdo inaad u kala horraysiiso masaa-ishu siday u kala horraysiisan yihiin inaad muran gelinin masaa'il yararoo fudud oo kuwii waaweynaaba ay dunsan yihiin inaad kuwan isku mashquulinin nabigu wuxuu isticmaalay muraasala waddanno kale iyo madax kale oo waddanna degan inuu la xidhiidho oo waraaqa u diro isagoo diinta ugu yeedhaya waraaquu nabigu qoray boqorradii dunida waagaa jiray buu u diray maalan waxaa ka mid ah cadiimu busra buu warqad u diray isagoo dixyat alkalbi saxaabiga la yidhaahda u dhiibay si qaysaru ruum loogu geeyo heracles ninkii la odhan jiray maxaa ku qoran bismi illaahi araxmaani araxiim min muxammadin cabdillaahi warasuulih ilaa hiraqla cadiimi ruum salaamun calaa man ittabaca alhudaa salaamun calaa man ittabaca alhudaa أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فعليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون متفق عليه nabigu calayhi salaatu wasalaam waraaqdaas uu madaxweynihii dunida waagaa ugu xooga badnaa waa un trump oo aad maanta waraaq u dirtid madaxweynihii dunida ugu xooga badnaa buu nabigu waraaqdaa u diray oo uu sheegay bisinkuu ku bilowday dabeetana waxay waraaqdu ka timi uhi maxamed oo ilaahay rasuulkiisa iyo addoonkiisiiya waxaanay ku socotaa waayeelka ruum u taliya ilaa hiraqla cadiimi ruum nabadgelyo korkiisa haata ciddii hanuunka raacda waxaan kuugu yeedhayaa islaamnimo war islaam waa diibaaniye ilaahayna ajarkaaga 2 jeer buu ku siin doonaaye haddaad islaamnimada diidana dembigaaga iyo kuwa kale aad ambisay aad u talinaysa dembigoodaba aakhira waa lagu qabsanaya dabeetana aayad qur-aan ugu qoro oo la leeyahay waxaad tidhahdaa war dadka kitaabka haysto kaalaya kelmad inoo dhex ah waa maxay inaynu ilaahay un keligii caabudno innaguna ina rabbiya iska dhiganoo isu xoog sheeganin haddaase taa diidaan ogaada annagu ilaahay baanu rumaynaya aayaddaa qur-aanana waa loogu qoray waxaa ka mid a baynu leenahay turuqu nabigu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam iyo wasaaisha alasaaliib walwasaa'il waan isku darayaaye alxiwaaru waliqnaac qofka si uu wax uga dhaadhiciyo xiwaar negotiation iyo maxay iyo iqnaac qancin dadka la qanciyo asaaliib taswiiqan maanta dunida ka jira wax laga yaabaa alkhadaac waliqraa'u iyo wax lamida inay tahy laakiin islaamka maaha islaamka qofka run baad u sheegaysaa waxaad isku dayaysaa inaad qanciso xaqaa'iqda inaad tasyiifiso lama rabo nin baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam bani vazara ka mid ah qabiilka la yidhaha bani vazara dabeetana wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow haweenaydaydii wiil madow bay dhashay waa nin carbeed oo cad xaaskiisuna cad dahay laakiin ilmaa u dhashay madow markaa ninkani dee uu shakiyey
isagiina waa caddaan islaantiina waa caddaan ilmahay dhaleenna waa maxay waa ilmo madow wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hal laka min ibil wargeel ma leeday ilmihii kama hadal iyo su-aashii la weydiiyey wargeel ma leeday buu ku yidhi markaasuu yidhi nacam famaa alwaanuhaa buu nabigu yidhi midabka geelaaga ka waran markaasuu yidhi geel cascas baan leeyahay carabtuna geela cas bay ku faani jirtay geela casi wuu uga qaalisanaa ka kale markaasuu nabigu wuxuu yidhi hal fiiha min awraq geelaaga cascas mid madoobe awraqu waa midabkan qoollayda iyo xamaamka oo kale geelaaga wax madmadoowi ma ku jiraan markaasuu yidhi ina fiiha la waraqa haa waa ku jiraan qaar madoobe nabigu wuxuu ku yidhi markaa fa annaa ataaha dalik kaa madmadoobe xagguu kaaga yimi geelaagu casaan buu ahaaye ninkani cilmiga geelu yaqaanay markaasuu wuxuu yidhi casaa an yakuuna nazacu cirqun waxaa laga yaabaa raad hore inay raacayso oo yacni fir hore inuu jiro oo madowgu ku jiro markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wahada casaa an yakuuna nazacu cirqun kan yare aad sheegaysana waxaa laga yaabaa dee fir hore inuu ku jiro ilmahaagu midabkuu yeelanaya waa laga yaabaa awowgaagii shanaad midabkiisii inuu yeesho ayaydaadii lixaad midabkeedii inuu yeesho yacni firkii aad ka soo tafiirantay wax ka mid ah genetically maanta waa wax la yaqaano wuu noqon karaa qasab maaha inuu idinka idinla midab noqdo walidalik baa carruurtaad dhashaa qaar waa madmadow qaar waa cascasaan qaar waa san waaweyn qaar waa san yaryar waay maxay nooc qura wada noqon waayeen ilaa labadiinunbaa dhalaye qaar waa timo juro ah qaar waa timo jilicsan adaana wada dhalay waayo waa cirqigaaga wax waliba waa ku jiraan marka dib loo raaco aabbayaasha iyo ayeeyooyinka iyo dadkii ku dhalay nooc waliba wuu ku jiraa saa daraaddeed keebaa dominant noqonaya keebaa xoog badanaya wax badan baa isweydaaranaya idan waxaa meesha ka muuqata masale diiniyuu nebigu rabay ninkan inuu u sharxo laakiin wuxuu u adeegsaday usluub caqliya si uu qofka kan caqligiisa maxay uu qancin karo waxaa la mid a ninkii dhallinyarada ahaa ee u yimi yani markaynu dacwad ka warramayno dee gaal qura lamala hadlayo gaal iyo muslimba muslimkana waxbaad ka shaafinaysaa qofka gaalkana waxbaad ka shaafinaysaa macnaa qofka gaalkaa tawxiidkaa la horraysiinaya kuwaasi qofka muslimkana wuxuu ka cabanaya dhibta haysataa la wadaya nin dhallinyara baa u yimo wuxuu ku yidhi iyadoo masaajidka la joogo nabiga saxaabadii la joogto u yimo wuxuu ku yidhi idan li bizina anigu waxaan rabaa in zinada lay fasaxo aniga suuqa lay fasaxa buu yidhi waa islaamay qof muslima baan ahay laakiin anigu hablaha inaan la cayaaro kama maarmayo suuqa laygu sii daayo nabigu ma odhan war bax waxunbaad ku hadlaysaaye iyo qof fiican ma tihin toona kuma odhanin wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu saxaabadii kale la joogtay waa dagaaleen bal wuxuu ku hadlaya day dee adigu waxaad qiyaastaa majlis nebi maxamed fadhiya calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadii waaweyneedna fadhido oo wiil dhallinyaro intuu iska yimaado yidhahda anigana zinada halay fasaxo saxaabadii kale zajir bay bilaabeen inay dagaalaan dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam udnu war soo dhaweeye wuu soo dhawaaday soo dhawow haddana ku yidhi wuu soo dhawaaday ilaa uu nebiga hortiisa fadhiistay nebigu wiilkii ma odhanin zinadu waa xaaraanna lama sameeyo rood iska tagiyadoo saxa laakiin wuxuu rabaa qofka kani mabda'an isagoo ku qanacsan inuu isagu fuliyo inaan awaamir lagu siinine inuu isagu qanco oo isagoo qanacsan u fuliyo dabeetana wuxuu ku yidhi hooyadaa ma la jeceshay wiilow hooyadaa inay suuqa gasho laga zinaysto ma jeceshahay laa wallaahi buu yidhi jacalanii allahu fidaak ilaahay furashadaada ha iga dhigee marnaba hooyada in zina lagu sheego ma jecli markaasuu nabigu wuxuu yidhi dadka kalena hooyooyinkood lama jecla inantaada ma la jeceshay buu yidhi inantaada aad adugu dhasho la wallahi yaa rasuula allahi jacalanii allahu fidaak buu yidhi marnaba inantaydu inay suuq gasho ma jecli dadka kalena hablahooda lama jecla buu nabigu ku yidhi walaashaa ma la jeceshay markaasuu yidhi may nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dadka kalena hablahay walaalayiin lama jecla eedadaa ma la jeceshay markaasuu yidhi may sidii buu haddana nabigu ugu jawaabay habar yartaa ma la jecel
dumarkii caarkiisa ahaye ku gadaanaa eedo iyo habaryar iyo hooyo iyo walaal iyo tulla dhalay buu tilmaamay intaa in laga zinaysta miyaad jeceshay buu nebigu leeyahy wiilkani wuxuu leeyahay maya intaa in ciid u soo dhowaato ma jecli nebiguna wuxuu tilmaamayaa dee kuwan kale aad ku socotaana raggunbay intaa u yihiin midunbay walaashii iyo inantiisii iyo eedadii iyo habaryartii tahay ayuu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam kadib uu nebigu intuu gacanta laabta ka saaray buu u duceeyey allahuma akfir danbah watahhir qalbah waxasin farja buu nebigu yidhi ilaahayow wiilkan dembigiisa dhaaf qalbigiisana u nadiifi farjigiisana u dhow buu ugu duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam falam yakun bacda dalika alfataa yaltafitu ilaa shay ducadii nebiga dabadeed lama arag isagoo xagga dumarka eegayaba xadiiska imaam axmed hore waxa uu tilmaamayaa caqliyada ninkaa dhallinyarada ah qaabkuu nebigu ula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam qabaa'ilka see loola dhaqmaa markii maka la furtay ayaa dagaal haddana nebigu sii qaaday xunayn buu tegey xunayn akhiiran xoolo badan baa lasoo helay markii dagaalkii xunayn dhacay reer thaqif xoolo badan baa laga qabtay xoolihii badnaayee la qabtay buu nebigu si xooggan u qaybiyey weliba wuxuu siiyey rag ama markaa islaamay ama islaamnimadooda hadda la dhowrayay ayuu boqol geela ayuu siiyey oo sanadiidu quraysh niman ka mid ahaa ayuu nebigu alay sala slam boqol geela siiyey dabeetana ansaartii niman ka mid ah ayaa waxoogaa tirsaday oo leannina waanu soo jihaadano waa intaasoo soo dagaalamaynay xoolihiina kuwii aanu hadda furannay seefaha iyaga weli dhiiggoodii baa ka daaya bay leeyihiin quraysh ayaa xoolihiina la siiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam warkii markuu maqlay uu soo gaadhay buu yihi ansaar oo dhan igu yeedha keligood baanan rabaa halkaana isugu keenkeena meel baa la isugu wada yeedhay ansaar baa timi waxaan ansaari ahayn miyuu fadhiyaa buu yidhi markaasaa la yidhi haayo nimanaanu abtini u nahay baa fadhiya wuxuu yidhi inanka abtiga loo yahay reerkuu ka mid yahay cid kale miyay joogtaa may baa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi war ansaaray alam ajidkum dallaalan fahadaakum allahu biya war idinkoo baadiya miyaanan idin helin oo ilaahay subxaana wa tacaala aniga gacantayda idinku hanuunin wacaallatan faaghnaakum biya idinkoo fuqraa miyaanan idin helin oo ilaahay subxaana wa tacaala aniga igu kinqani yeelin idinkoo mutafariqiin oo ishaya oo dil iska badiyay miyaanan idin helin oo ilaahay aniga gacantayda idinku kulmin waxay idhahdaan allahu warasuuluhu aman niman dhallinyaraa baa warka marka hore sheegay allahu warasuuluhu aman ilaah iyo rasuulkiisa baa gallad sheegasho leh ama gallad leh markaasuu nabigu yihi maxay igu jawaabi weydeen idinna maxaa u sheegan weyden anigu taydii baan sheegtay iyo waxaan idin taray maxaa idinna u sheegan weydeen buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam haddaad rabtaan waxaa odhan lahaydeen buu nabigu yihi kada wa kada wa kada wuxuu sheegay mianan dee adagoo gaala ku eryanaysa ku helin oo kuu hiilinin oo caynka waxaa qabsateen kadib uu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi war dadkana inay xoolaha geelasha iyo adhiga iyo waxaa qaataan idinkuna ilaahay rasuulkiisa aa qaadataan oo nebi maxamed idin raaco miyaydan jeclayn haa bay idhaaheen raalli baanu qaybtaa ku nay haddii nebi maxamed annagana raacayo xoolahoo dhami iyaga ha ku hadhaan dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alansaaru shicaarun wannaasu dithaarun ansaari waa shicaarka waxaa la yidhahdaa marada qaybtan xagga hoose xigtana ama maryahan hoose la xidhana shicaar baa la yidhahdaa maryahan sarena dithaar baa la yidhahdaa wuxuu yidhi ansaari yacni waa marada hoose dadka kalena waa marada kore ee haddaan hijradu aanay jiri lahayn waxaan ahaan lahaa buu leeyay nin ansaar ka mid ah hadday dadku waddo qaadaan ansaarina waddo qaado waddada ansaareed baan raaci lahaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waktigiina waa dhowiyey welina maan dhadhowin laakiin waan guud maraya waxaa hadhay waxaan kaloo rabaa inay mas'alo siiba tulaab alcilmiga waa mas'aladu sheekh waxiidadiin khaan ku tilmaamo altafsiir watarkiiz mushkilaadku way iska gediyaan waxaa laga yaabaa ardaygu
sheekhiisa markuu wax ka baranayay mashaakilkii wadcigu uu ku noolaa yaalay ayuu sheekhu aada u tooganayay dabeetana nusuus badan oo masaa-ishaa ku saabsan buu sharxayay shubahaadkii waddankaa yaallay buu radinayay shubahaadkii hadday dawoobaan oo 10 sano 20 sano ka soo wareegto ardaygu haddaanu arday caqli badan ahayn waxaa laga yaabaa markuu kitaab akhriya ama wax akhriya inuu wixii uun ka hadlo wixiina meeshiiba ma yaalliin sheekhu wuu saxsanaa ardaygu se uu qaldan yahay waxay dhahdaan sheekhu wuu tarkiiziyey masalada culaysku saarayay ardayguse tafsiirun lidiin buu uga dhigayba diintuba in waxaanoo laga hadlatay maalan waxaa laga yaabaa soomaaliya markaad joogtay xabaalo iyo qubuuro iyo waxaa in laga hadlayo jahamiye iyo dad nooca halkan jahamiyena ma joogto xabaalana ma joogaan haddaad intii un dadka tawxiidka uga dhigto halkan eethiis iyo ilaahay ma jira iyo beliya baas kala taagan idan kitaabka caqiidada ee halkan laga akhrinayaa wuxuu tarkiizinayo ama ardayga halkan ku noole caqliyadiisa wuxuu u baahan tahay in loo tarkiiziyo iyo ardayga soomaaliya jooga waxaa la rabaa in loo tarkiiziya waa kala nooc idan waxaan leenahay mas'aladaasi waa mas'alada markaad aragto taariikhil ambiyaa qur-aanka aad eegto tawxiidkay wadaagaan laakiin mashaakilkay daweynayaan waa ku kala nooc mashaakilkay tarkiizinayaan waayo nin waliba inxiraafkii waqtigiisa yaalle gaarka ahaa ayuu isku dayay inuu xoog u tarkiisiyo idan waxaan leeyahay dacwadeennu hadba waxay tarkiizinaysaa ha ahaado mushkilaadka xaadirka ee meesha yaalla haddaan baabulxikma intaa kaga baxo waxaa ku xigay mawcida xasana bilxikma waalmawcidati alxasana waana fiican waxaan leenahay bini aadamku ka damiga ah iyo ka caamiga ahi caqli iyo qalbi bay leeyihiin mar kasta taxliil loojiga iyo kan baan ka warramayaa ma aha dadku wacdiga kama maarmaan hamoodin in caamadun la wacdiyo ama dadka masaakiinta un la wacdiyo ama war khubaradana waa la wacdiyaa wacdigu waa qofka oo maxay bitarghiib watarhiib ولذلك بقى إلهي القرآن كي سبقوا المامية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين عرباض بن الصاري حديث كي سعان كواكلها النبي قال نوعديي وانا إنه أي أويين وقلبي يدو قلقلمين مركزان وكونوا دي إلهي رسول كي سيونا نقدت كيسابات مودة تيو دم بيسينا لدردارا إذن موعظة ولابد وكي ابن عباس لها نبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة وانا دوا نوكل دبلغي جري مالمها قار كود بو موعظوين كي وانا كبلا باي صلاة دي الصبح إلا صلاة دي مغرب صلاة دي الصبح انتو بلا باي منبر كسيدو صارنا نبي مغرب كيبو كدا دقي صلاة دون بو كدا دقي إذا وحين لنا وحين وباهنا هاي وعدي بين وباهنا dadku in badan in la wacdiyo ilaahay la xasuusiyo dhalinyarada dambe jaamacaadka iyo iskuuladii meelaha gasha wacdigu la fududaada waxay moodayaan waxa haddaan qaab akademika looga hadlin inaan macno lahayn maya bini aadamkaanad fahminba weeyaan bini aadamku quluubna wuu leeyahay cuquulna wuu leeyahay iyo si caqliya waxa loo qanciyo isla markaa wuxuu u baahan yahay baabi targhiib watarhiib in la waaniyo oo janniya naar loo sheego oo la wacdiyo waxaan ku gabagabeynayaa waljidaalu bilatii hiya axsan oo u badan kashfi shubahaat dood oo qofka meesha muranku kaga jiro ama meesha shubhadu kaga jirto si loo caddeeyo oo shubhaadka loo kashfiyo dee mar haddaanu mooga kacaynin aan intaa kusoo gabagabeeyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى شيخنا قبرنا ميزانك حسنات كين أسار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إننا ونقلب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه جزاه الله خيرا شيخا إن شاء الله تعالى وحا أن نقلدنا فصحير أما بالرفير بنقلدنا إن شاء الله تعالى وحنا نسوس أن نقولنا اللحظة هي بركة ومحاضرة الشيخ أبو طلحة وقالي دونا وحن أجيسين يا ولا لها ماشى فردية سيبة ولا لها دم كيمي إن ماركت ماشى باركن كلا دكتو جوارد الله دقي إن لقي يابا إن لقو جناح سيدا عودت إن لصوه بصدا ولا لها ماشى إلى لنا أي لك عشدان إن شاء الله تعالى وعده بصدا ماشى بابور كدكتي
in aan lagu ganaaxin insha allahu tacaala 6 iyo barhka waxaan rajeynayaa in 10 daqiiqo ka hor inaad soo fadhiisataan si muxaadarada looga faa'iido بارك الله فيكم وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة عصر بها هذا تاجن ولا تكنيا سيدا أودد وحن جعلان لها هنا أيها الإخوة والأخوات إن كراسيدنا لقعوي إن شاء الله تعالى هل قف ولما هل كرسي وليه هدو قاضو ويفوضان إن شاء الله تعالى ضد أجانبها وسوق اللي دون مرلو أو كنت كنيا مركا عين سعاونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير إلى سبحانه وتعالى هذه كابر مريم